soddonkii bishii abriil ee sanadkan 2024 waxay ahayd maalin muhiimad weyn u leh Soomaaliya iyo howlgalka Atalanta oo ah howlgal ciidamada badda ee midowga Yurub ay ku taageeraan Soomaaliya taasoo muujinaysa sida midowga Yurub uga go'aantay xaqiijinta amniga badaha in ka badan 15 sano oo lagu guuleystay howlgallada amniga badaha ee gobolka howlgalka midowga Yurub ee Atalanta waxa uu Soomaaliya u noqday saaxiib lagu tashan karo ra'iisul wasaare Hamza Abdi Barre I extend my heartfelt gratitude to the European Union and all nations that contribute to this mission. Your solidarity and support are crucial as we continue to work together towards a secure and prosperous future for Somalia and the wide region. wuxuu gacan weyn ka geysanayaa la dagaalanka falalka burcadbadeeda iyo xaqiijinta amniga badaha geesta kale iyadoo laga duulay xoojinta midnimo ee midowga Yurub ayaa waxa munaasabadaasi ka qayb galay taliyaha howlgalka Atalanta Rear Admiral Saladino safiirka midowga Yurub ee Soomaaliya Marwa Karin Johansson safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya Pier Mario da Cacobi taliyaha ciidanka EUTM General Volvio Boli madaxa EU-CAB ee Soomaaliya Dania Cosa EU-CAB Somalia builds capacity closer to shore. EUNAVFOR Atalanta since more than 15 years. Existing assets support Somalia in the fight against piracy, illegal trafficking of arms and drugs, as well as support on illegal fishing. iyadoo laga duulay iskaashi ku qotoma aqoon-is-weydaarsi ayaa howlgalka midowga Yurub ee badaha waxa uu iskaashi howlgalaha la sameeyay unuga booliska badda ee Muqdisho iyagoo soo bandhigay dowlad wada jira oo ka turjumaysa kartida iyo rabitaanka howlgalka Atalanta ee ku aadan la shaqaynta ciidamada Soomaaliya. I'm proud to represent an European Union today, and I'm proud to host the Prime Minister on board an European ship. This is a tangible sign how close and strength our relations are.